dagaalkii muddada dheer ka socday gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ayaa hadda galay wajigii dhabta ahaa ee ay u yeeleen odayaasha dhaqanka dhulbahante markii koowaad taariikhda Soomaalida Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa reerkiisa yiri gala dagaalka ayadoo ay muddadaas hanjabaad iyo beegsi ku hayeen beesha Habar Jeclo hadda mar kale odayga ugu sareeya Habar Jeclo Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo qaadan waayay duulaanka gardarrada ah ee reerkiisa ku socda ayaa qaatay go'aan la mid ah midkii Garaad Jaamac Garaad Cali ayadoo uu iclaamiyay duulaan la isaga difaacayo huwanta dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ciidanka amar qaata garaadada bariga gobolka Sool weerar afduub iyo guryo la gubay ay ka geysteen magaalada Buuqdharkayn halkaas oo khasaare xooggan ka dhashay waana tan keentay inuu fadhiga ka kaco Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo uu reerkiisa u sheego inay isdifaacaan sidoo kale hadalka suldaanka oo ahaa mid cad oo qodobo watay ayaa walaac iyo cabsi ku abuuray garaadada bariga gobolka Sool oo muddo buddig u ahaa colaadda ka taagan Laascaanood iyo nawaaxigeeda sidoo kale boqor buur madow oo waayadii dambe maqaamkiisu hoos u dhacay halkii laga filayayna ka hoos maray ayaa waji gabax kala kulmay cod uu u duubay mid ka mid ah waxgaradka Laascaanood oo baraha bulshada lagu faafiyay sidoo kale boqor buur madow waxa la gudboon oo laga sugayaa inuu qaato go'aan la mid ah midka Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo uusan intaan ka badan ka dhuuman xaqiiqada hortaala dhinaca kalena garaadada bariga Sool oo muddo dheer afka ku hayay hanjabaad ku socota Habar Jeclo ayaa hadda dareemaya inuu dagaalku galay wajigii dhabta ahaa ayadoo ay ka warhayaan inaysan cudud ahaan u bareeri karin Habar Jeclo taasoo keentay inay maanta ka fikirayaan dariiqii ay uga baxsan lahaayeen colaadda ay gacmahooda ku abuurteen sidoo kale ciidamada madaniga ah ee Habar Jeclo ayaa wada diyaar garow ciidan oo xooggan ayadoo ay dhinaca kalena fadhiyaan degmada og ciidanka militariga Somaliland oo saacad kasta garab siin kara ciidanka madaniga ah ee Habar Jeclo sidoo kale muddo dheer ayaa la fahamsanaa in haddii ay ciidanka Somaliland garab iyo taageero ka helaan shacabka inay adkaan doonaan haddana waa ayadoo ay jiraan ciidan beeleedyo diyaar u ah inay difaacaan deegaankooda sidoo kale hadalka Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale ayaa durba helay taageero baaxad weyn ayadoo ay dadku ku tilmaameen mid xilligiisii yimi sidoo kale waxaa loo arkaa hadalka Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale mid hurdada ka kacshay beelaha Isaaq ayadoo ay durba bilaabeen beelaha kale ee Somaliland dega inay gurmad iyo garab istaag u muujiyaan beesha Habar Jeclo dhinaca kalena waxaa la filayaa inay beelaha Garxaajis maalmaha soo socda qaataan go'aan la mid ah midka Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale ayadoo uu Suldaan Cadagode horay u sheegay inay isugu imaanayaan wadatashi loogu hiilinayo Habar Jeclo sidoo kale dagaalka bariga gobolka Sool ayaa hadda u muuqda inuu galay wajigii labaad ayadoo ay beelaha Somaliland sheegayaan inay isdifaaci doonaan dhinaca kalena ay difaacan doonaan xuduudahooda taasoo ka dhigan inay hadda isku diyaarinayaan dagaal ay isaga difaacayaan weerarada uga imaanaya kooxaha huwanta ah fadlan daawade muuqaalkan like saar oo la wadaag asxaabtaada